haddii laga hortagi waayo wallahi billahi tallahi si macnaha hal haleel oo dhiman doona shalati ee bari container soo socda walaaliyal maxaq baa inay dadkeena la laayo maxaq baa inay la laayo anaka fafirru ila allahi inni lakum nadhirun mubin xagee bihiin oo yaaca dunuubteennii ma badatay ilaaha ka fogaanay ciqaabteedii maanta waa aragnay walbo damiir leh oo bini aadanimo oo ka naxaya waxaan halkan ka dhacay sanadihii ugu dambeeyay mana maqlin mana arkin waa dareenka qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo laba maalin kadib qaraxu markuu u dhacay isugu soo baxay bartamaha caasimadda waxa uu ahaa qaraxii ugu qasaaraha badnaa taariikhda inta loo yahay ee ka dhaca Afrika waxa uu ahaa qaraxii labaad ee ugu dhimashada badnaa dunida kadib kii Mareykanka ee 11 Sebtembar 2001 waxa uu dhacay xilli mashquul badan oo ka jiray iskooska Sobe oo kamida meelaha ugu saxmadda badan magaalada 2 sano ayaa laga joogaa mashaqadii Sobe aan dib idin kugu sawiro sida xaalka Sobe ah ka hor qaraxa saacadu qiyaastii waa 3 galabnimo waxa raaca qadar daqiiqada ah halkan aad ay mashquul u tahay gaadiidka dadweynaha ayaa isdhaafila dad badan ayaa sidoo kale dukaamaysanaya ganacsiyo yaryar iyo kuwa waaweyn intaba halkan way ka jiraan Sobe dhagax yar hadaad kor u tuurto dhulka ma dhacayo waa inuu qof ku dhaca ama gaari mashquul badan ayaa halkan ka jira waxa iskooska Sobe oo saxmad badani ka jirto isa soo taagay gaari xamuul ah oo lagu soo raray waxyaabaha qarxa waanu qarxay 500 oo qof tire ka badan ayaa dhimatay galabkan dhaawaca afkaygu ma karo dad badan ayaa lixaadkoodii ku waayay dadka qaar ayaa waayay ehelkoodii iyo saaxiibadood iyagoo nolol iyo geeri intaba ku arag marka wallahi aadan u walwalay qofkii hadii dhibashadiisa xataa meedkiisa la arka xataa wax fiican waa ku sabreenaa laakiin meedkina lama hayo waxa laga yaabaa in marka aad nasiib u yeelato la kulanka qof goob jooga waa dhacdadan inta uu ku eego kugu canaanto beerna xamalihid miya ha isoo xasuusin saameynta qarax ayaa gaartay fogaanka durugsan laamiga waxaa sii kiciyay qaraxa booyad shidaal ah oo ka ag dhaweed gaariga qarxay daaraha waaweyn ee aagan ku yaala ayaa dumay badi iyaguna dhaawac iyo dhimashada ay kordhiyeen xitaa dadka qaar ayaa la awoodi waayay in loo gurmado xamar dhaxal uma helin bikolkeeda lagu qubo xamar dhaxal uma helin dadkeeda lagu dhibo Taabid Cabdi Maxamed oo xilligaasi ahaa duqa magaalada oo cabirayay waxa uu arkay ayaa yiri waxaan indhahay ku arkay musiibo iyo argagax oo naf iyo maal leh oo qof bini aadan marnaba weligii qiyaasan ama arkin 5 qof ayaa loo qabtay dhacdadan xasan aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan dawladdu waxay ku eedeynaysaa al-shabaab 2 sano kadib ganacsiyo iyo dhismayaal hor leh ayaa ku soo badanaya iskooska 14 Oktoobar ee Kisobe maatada ku nool Muqdisho oo musiibadu marti u tahay mar walba ayaa iska hilmaamay musiibadan oo ahay tii ugu darneed oo ay milkiyaan laakiin wili cabsi ayaa jirta wixii dhacay saacad walba way iman karaan waxaad malaysaa inaan wax badan oo laga gaashaantaysan jirin salaam markii meeshan dib ka dhacay waxa dhibaato culayska ugu badan wuxuu noqday meel la maro maantana culayskii oo laba jibaaran ayaa jira wadadii waa sidii jamka waa sidii checkpointadii way yaalaan oo maartay ismiiskii weli waa sidii uu jam u yahay maalintii ay dhacday mashaqadan oo ahayd 2 sano ka hor 14 Oktoobar waxaa la go'aansaday in la bedelo magaca iskooska Sobe oo horey loo oran jiray halkan waxaana loo bedelay 14 Oktoobar siday u dhamaynayaan dhalankii hooyadooda dhakhaatiir iyo waxgarad dhigeena u daaliin way waxa lama dooran